haddaba arrintaas aniga sida ila tahay aragtideeda gaabanne aan ku qiyaasay waxay ila tahay hal arrin haddii ay dadkaas xasuusnaan lahaayeen xifdi qur'aanka walaashayda hagaagsan si aad horumarka u gaarto qab hagaagsan taqwaduna ha ahaato la jirkaaga. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دما ولا لها قيارتي أصحابتان جعلها هي جنال كيان واني وعي قلين كحران ولا غير سود وهذا لما ولا لها يوعسبنا سود ويني وحاجة لها سود وهذا قاعد فرق سود وهذا أقيار أصحابي ما أنتو حاربا إن شاء الله دو إلهي ما يدهن إنان إذن لو ذاقو محيه تولي inta badan waxaan aragnaa dadka caanka ah oo kuwan isku dhagan ee social media isku haysto ee mar walba ma aragta xogahooda iyo sirahooda ayagoo isceebeynayo ma dhahay dadka oo idiliyana dhihin laakiin inta badan Soomaalida waxa weeyaan iyo qaasatan dadka Islaamka ahbo waxaan aragnaa inay isku dhagdhagan yihiin ay saflagaadeynayaan sirihii ay bariyo hore isla wadaageen ee banaanka soo dhagayaan Soomaha. haddaba arrintaas aniga sida ila tahay aragtideeda gaabanne aan ku qiyaasay waxay ila tahay hal arrin haddii ay dadkaas xasuusnaan lahaayeen ama halkan xadiis oo aan u baahanahay xilligan la joogo inaan aad u dhaqan gelino haddii dadkaas laga heli lahaa waxaan rajeynayaa inaysan dhacdeen qof waqt dambo oo qof islaami ku dhagan ama aflagaadeynaya ama fadeexeynaya ama ceebeynaya ama wax ka sheegayo. marka xadiiskaasna waxa weeyaan xadiis macruuf ah dadka intooda badanna way maqleen ama way yaqaanaan. marka waxaan misleeyahay aniga dadkaas haddii aan cudurdaar u raadino waa dad walaalaheena. Umar ibn Khadaabna wuxuu yiri qofka walaalka ah 10 jeer cudurdaar u raadi. marka haddii aan cudurdaar u raadin aniga waxaan isleeyahay waa un ay ilowsan yihiin haddii ay laakiin xasuusnaan lahaayeen waxaan rajeynayaa xitaa inay dhaqan gelin lahaayeen dib dambana aan loo arkeen dad caan ah oo social media isku heesaysto iyo kuwa kale oo bariiska si dhaxraadiyay. xadiiskaasna waxa waaye xadiiska uu Nabi sallallahu alayhi wasallam leeyahay qofkiin ima rumaynin haddii uusan la jeclaanin naftiisa waxa uu la jecel yahay nafta walaalkiis. haddaba waxaan ku weydiinayaa kaagan wax caayay wax ceebeynay kan la caayay jawaabiyabo adiga naftaada ma la jeceshahay in maxay toore lagu soo caayo maya haddii aad jeceshahay marka hore intood ma aadan soo jawaabteen marka qofka ku soo caayso marka waxay tahay naftaada xumay ceeb iyo caay in ma aragta sirri laga hay banaanka la soo dhigay ma jecel. marka adigane adoo xadiiskaas Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ka duulayo maxaa ku diiday inaad ma aragta qofka walaalka marka ugu yartahay haddii aadan maca wax kale u geysanayn ama wax kale aadan dhihi karin ama aadan si kale u saamixi karin maca inaad ka aamusid ceebihiisa iyo caaydiisa aad banaanka soo dhigin. mase kula tahay qof maanta maxay heetoole inta la soo caayay maxay heetoole iska aamusay inuu jiro maya oo ogahay qof walba waxa weeyaan horta uu caroonaya caraan qaadayso wuxuuna jeclaanayaa shaydaanku ku siirixayna qofka kale u jawaabo. laakiin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu baray waxyaabo fara badan oo marka careysanahay aan sameynayno oo mid ugu fudud ugu sahlan ugu yarna ay tahay a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim hadii aad tiraahdo shaydaanku wuu ka degayaa kadibna adoo degan walaalka u soo jawaab si kalena ha u soo jawaabin hana soo cayn hana soo aflagaadeynina kaliya xasuusi xataa maca xadiiskan xataa xasuusi waxa huba 100% hadii aan sidaas sameeyno inaan dib dambe loo arkeen dad iscaynay dad aflagaadeynayo qof kale ku maran maxaa yeelay qof aad inta ku soo caay xadiiskaas ay xasuusisay umalaysan kartaa qofkaas inuu intuu isku xishoodo isku qajilo isku yaryaraado oo welibane markii aan sugi lahayn inuu qofkaas yeeyo qofkii kale maxay heeto si kale ugu jawaabo wuxuu daarka bixin lahaa caaydi aflagaadada iyo sirri iyo waxyaabihii uu faafiyay. marka waxaan garjeenayaa waxay tahay dadkiinaan isku maran aflaad ka saacis caynaysa aflagaadeynaya xumaha ma aragta meel walba isaga faafinayabo ina ilaahi ka cabsano biidnillaahi albaari inaan isceebeynin isfadeexaysanin si kale inaan bariiska ku raadsano laakiin qofna inuu qofka kale bariiska dul raadinin kuwa bariiska ka dul raadinaya warka faafinayo iyo kuwan ayaga laftirkooda maxay heetoole iscaayay meelaha intay janalada soo fariistaan maxay heetoole isfadeexeynaya ceebahooda iyo sirrihi bari hor iska hayeen banaanka soo dhigay waxaad garjeenaa waxda idinku xadiiskaas ka duulay insha Allah inaysan maxay heetoole mar dambe dhicin in la isaflagaadeeyo la isxagxagto war mar ma dhihi karno laba ma dhihi karno saddex ma dhihi karno subxaanaka yaa ilaaha alcaalamiin waxa hawada la isku marinayeen wax dhaga qof islaam uu dhageysan karo wallahi alcadiim ma ahan fogta ugu horeysa maca hadaa aragtid baaba ka argagixisa marka qalbigu ku siinmay inaad sii dhageystid ama inaad sii dhameystirtid. marka walaalayaalow
waxa kale oo aniga isweydiiyaa mar walba waxay tahay horta maxaa dadkan muslimiinta ah isku maray war inta social media dad fara badan ku jiro oo muslimiin ahayn haddana maxay muslimiinta isku caayaan isku aflagaadiyaan bariiska si kale aan ku raadsano dadkaas naga bariis helis badan haddana iskuma marno isku mashquulaan nin walba noloshiisa iyo danihiisa gaarka oo wata qof ku dhagan ma arkis anaga maxaa isugu dhaganaa maxaa isugu marana bilcagsi anaga ahayd maadaama aan muslimiin nahay in dhaqankaas wanaagsan nagala helo oo qofna uusan qofka kale ku mashquulin laakiin aniga ma aqaan waxaan malinaa dhaqamadaas oo dhan anaka leen nagala qaatay qolyo kala kadibna dhaqan galiye oo waliba ilaa raxmaanka uusan ajirna ka siineen abaalna ka siineen laakiin aan aqal markay ugu yar tahay noloshooda oo qurux badan cidna cid ku mashquulsan cidna cid ma aflagaadeenayso mise tolo waxa noogu wacan fowdada iyo maaragta kala dambeyn la'aanta wallahi ma fahmi waa marar badan oo isweydiiya maxaa yeelay youtuber fara badan aan fiirsadaa oo Soomaali ahayn xataa maca muslimiin ahayn oo gaale marka mana arag waligeena ma arag qof kale ku maran waligeena ma arag qof kale fadeexaysanay hada idinka aragtay waa gaar way la wadaag kartiin laakiin aniga ma arkin marka insha Allah waxaan naga rajeynaa waxay tahay ama idinka rajeynaa in xadiiskaas anagoo ka duulayno ee diinteena macaan waxa ay nafartay inuusan qofna qof islaam walaalkiisa uusan ku mashquulin biidnillahi albaari insha Allah waxaan rajeynaa inuu mowduucigaas ama maaragta qodobkaas amaanta aan ka hadlo uusan noqonin qodob qof gaar ah ama dad gaar ah loo weeciyo laakiin aniga si guud baan hadlayaa xadiiskaasna si guud baan maaragta maxay heetoole baraarujintiisa u keenay qofna ulamadan lihi warkeygan waxa weeyaan cidna weerarku ma aan sidaan marar badan badhaho insha Allah waxaan rajeynayaa in maaragta qodobkaas ama fariintaas aan fahnay aan dhaqan gali doono biidnillahi baari nafteedii naftiinana ilaahay waxaan magan uga nahay inaan qof islaama ku dambaabno ama ceebihiisa iyo maaragta fadeexooyinkiisa aan bariiska dul raadino biidnillahi baari أخيار إذا ما هتسمكونا ما هتشين داوشيد الناس تقرح بدنا على سعتان بين الله الباري فيديو حاجة أنت كل منه هذا كي قلت يا واحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حفظ قرآنك ولا شيء ذا هجاكسن سي أظهر مرك وقارتو قب هجاكسن تقوى ذونا ها طول جركا هميقا